رحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN qodobada aan idinkuga haynana waxaa ka mid ah warbaahinta Israa'iil oo ka warbixinaysa dhacdo culus oo ciidankooda ku qabsatay Mareykanka Gaza markii ereygan la isticmaalo inta badan waxa loo adeegsadaa weeraro adag oo ciidanka Israa'iil la kulmeen diyaaradaha qoomaatiga u kaca oo la aaminsan yahay in dhaawacyo sidaan ayaa ku digay cisbitaalada ku yaal koonfurta Israa'iil tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiintu ay ka warbixiyeen weeraro kalena ciidanka Israa'iil dhinaca kale duqeynta ayaa lagu sii wadaa Mareykanka Gaza halkaasi oo la sheegayo in maanta oo kaliya dad ku dhow 40 qof ay ku dishay Israa'iil weerarada halka ay ka wado madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si adag uga hadlay tilabada Israa'iil ay ku qabsatay dooniyihii ku socday Mareykanka Gaza ee gargaarka siday iyo dadka dhaqaaqayaasha ee saarna booliska UK oo ku tilmaamay fal argagixiso weerar loo adeegsaday toorey iyo baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Manchester halkaasi oo la sheegay in laba qof lagu dilay qofkii weerarka geystay ayaa boolisku ay toogteen waxa kaloo idin haynaa dalkaasi Ethiopia ku dhawaad 40 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku geeriyoodeen kadib markii ay soo dintay saqafka sare ee kaniisad ku taal dalkaasi dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno iyo falaqayntii ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa maxamedan ku bilowna qodobada wararka ugu waaweyn warbaahinta Israa'iil ayaa ka waramaya xaalad ay ku sheegeen mid ka dhacday Mareykanka Gaza oo ay ka wadaan in ciidamadooda uu dagaal ku qabsaday ayaa natiijada ka dhalatay waxay tahay askartooda inay qaarna dhaawacmeen qaarna ku dhinteen qaar kamid ah ayaa diyaaradaha helicopter isbitaalada u qaadeen Saraa'iil Qudus ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay duqeeyeen oo gantaalada motorada la yiraahdo la dhaceen taliska ay ciidamada Israa'iil ku leeyihiin meel waqooyiga ka xigta التفاح deegaanka la yiraahdo ee bariga magaalada Gaza dhanka kale Saraa'iil Qudus ayaa iyagana sheegaya in ay qabsadeen diyaarad nooca drone-ka ah oo Israa'iil ciidamadeeda sirta u adeegsanayeen xog ururin deegaanka Tal al-Halwa ee koonfurta magaalada Gaza weeraraan 34 Falastiiniyiin ayaa lagu dilay meelo kala duwan oo Mareykanka Gaza kamid ah iyadoo Israa'iil ay weeraro ka wado deegaanka magaalada Gaza iyo agaarkooda wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay 77 qof in lagu dilay 22 kalena lagu dhaawacay dagaalo ay Israa'iiliintu ku qaadeen Mareykanka Gaza iyo magaalada Gaza 40 saac soo dhaaf tirada dadka dhibanayaasha ah ee burburka hoostiisa ku jira ee wadooyinka ayaa gurmadka degdega ah iyo kooxda difaaca bulshada aynan awood u lahayn inay ka soo daabulaan sabab la xiriira duqeyn ay Israa'iiliintu wadaan dhimashada guud ee labadii sano dagaalka ku dhawaadka socday ee Israa'iil ku qaadeen Mareykanka Gaza ayaa waxay gaartay 66225 halka dhaawacana uu ku dhow yahay 170,000 wasiirka arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa sheegtay in dhammaan gaadiidkii ay wateen dadka samafalayaasha al-Samuud ka soo ambabaxay wadamada Yurub rabay inay jabiyaan go'doominta Mareykanka Gaza in kulligood laga hortagay sida wasaaraddu ay sheegayso maraakiibtaasi ka qayb qaadanayay in ay jabiyaan go'doominta Mareykanka Gaza ayaa rakaabkii la saarnaa kulligood lagu waramaya in xaaladooda caafimaadka ay fiican tahay loona soo wareejiyay Israa'iil ka hor inta aanan loo masaafurin wadamadooda Yurub saraakiisha Israa'iil ayaa intaas waxay ku darayaan in mid kamid ah maraakiibta uu wali soo gaarin badahooda hase ahaatee aad uga fogeeyaa magaalada Gaza Israa'iil ayaa sheegtay haddii uu markabkaasi isku dayo inuu ku soo dhawaado deegaanka Israa'iil go'doomisay in asagana tallaabo laga qaadi doono maraakiibtan Samuud ayaa waxaa soo abaabulay dad ololayaal ah oo Falastiiniinta taageera waxayna rabeen inay gargaar geeyaan Mareykanka Gaza marka laga gudbo in Israa'iil go'doomin xagga badda ku hayso iyo xagga barigaaba Mareykanka Gaza madaxweynaha waddanka Turkiga Tayyip Erdogan ayaa ugu baaqay Israa'iil faragelintii ay ku samaysay dadkii gargaarka geyn lahaa Mareykanka Gaza inuu yahay fal burcadnimo isagoo khudbad u jeedinayay xisbiga AK
uu ka tirsan yahay ayaa uu sheegay madaxweynaha waddanka Turkiga in biyaha caalamiga tilaabada Israa'iil ka qaaday uu cadeynayo in ay xasuuq ku waalatay oo ay qarinayso dambiyada ay ka gashay marinka Gaza. ninka xasuuqa taqasub ku ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayuu ku tilmaamay madaxweynaha hadalkiisa isagoo sii watay inaan loo dulqaadan karinin in fursad lagu heli kara nabadba uu ogolaado. Erdogan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maraakiibtii caalamiga ahaa ee saamalayaasha la socdeen in mar kale ay muujinayso caalamka dhan u muujinayso xadgudubka ay Israa'iil ku sameynayso Gaza iyo dilkeeda joogtada ah. dadka Falastiiniyiinta ee walaalaheena marnaba kama baaqsan doono inaan ka shaqeyno sidii lagu xaqiiqsan lahaa xabad joojin nabadna loo soo celin lahaa. Erdogan ayaa hadalkan markii uu jeediyay kadib waxaa xeeralayaha guud ee magaalada Istanbul waxa uu dacwad ku soo oogay in baaritaan lagu sameeyo dad Turki ah oo qayb ka ahaa maraakiibtaasi isku dayaysa in ay godoominta Gaza jabiyaan. wararka caalamkana waxaa ka mid ah ugu yaraan 36 qof ayaa dhintay 200 oo kalena waa dhaawacmeen kadib markii munaasabad diimeed oo lagu qaban lahaa Ethiopia uu dadkii uu ku soo dumay dhismihii qayb ka mid ah kaniisad ku taala waddankaas sida booliis iyo qof ka samada baxay masiibadaasi uu sheegay. alwaaxiyo la dhigay goobtii ay dadka ka gudblaayeen kaniisadda ayaa duntay waxaana la sheegayaa taliyaha maxalliga Ahmed Gebeyahu uu sheegay in ay dhibaatadaasi dhacday raadiyaha dowladda laga sii daayay. booliiska waddanka Britain ayaa ku dhawaaqay in weerarka lagu qaaday macbid ay Yuhuudda leeyihiin magaalada Manchester loo tixgelinayo falkaasi inuu ahaa mid argagixiso. ku-xigeenka madaxa booliiska Manchester Lawrence Taylor ayaa waxa uu sheegay in guddiga baaraya faralka argagixisada ee laanta booliiska ay xaqiijinayaan in weerarkaasi waa mid argagixiso bayaan ay soo saareen. wuxuuna intaas ku daray 2 qof ayaa la xiray buu leeyahay waxayna ku salaysan tahay macluumaadka hadda og yihiin oo booliiska qaybta la dagaalanta argagixisada ay sheegeen falkaasi inuu ahaa mid argagixiso. wuxuuna sheegayaa in kooxo mutakhasisiin ku ah baaritaanka ay hadda hawshaasi wadaan. 2 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi Manchester ka dhacay. booliiskana waxay xaqiijiyeen ninkii weerarka qaaday in toogasho lagu dilay. waa tahay maxamed waa mahadsan tahay daawadayaashana way mahadsan yihiin mar kale ayaan soo dhaweynaynaa. daawadayaal waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii war ah ee degdeg ah ee soo kordha laakiin aynu ku hakanno qadar